madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo oo ka jawaabaya baahiyaha shacabka gaar ahaan kuwa dadka danyarta siiba agoomaha ayuu xariga ka jaray dugsiga Kuwait Charity gaar ahaan qaybta hablaha kaas oo noqonaya dugsiga labaad ee agoomaha ay hirgeliso dawladda Kuwait looguna talagalay inay wax ku bartaan caruurta agoomaha iyo kuwa danyarta si loo siiyo fursad ama chance ay wax ku bartaan ubaxaasi dalka u soo kacaya dugsigan Kuwait Charity Academy gaar ahaan qaybtan agoomaha ayaa laga bineeyay ka soo horjeedka dugsiga agoomaha ay wax ku bartaan inamadu ama wiilashu oo ku yaala bariga caasimadda Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu xariga ka jaray waxa uu soo kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay dugsiyadaasi waxaana warbixin ka siinayay maamulka dugsigaasi iyo wafdi ka socday dalka Kuwait oo u yimid Soomaaliland inay madaxweynaha Soomaaliland kala qayb qaataan mashruucan uu dalkooda yagleelay intaas kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka qayb galay xaflad loo sameeyay furitaanka mashruuca si ballaaran ee isugu jiray boardingka iyo waxbarashada waxaana kala qayb galay madaxweynaha marwadiisa wafdi ka socday dalka Kuwait xubno ka tirsan golaha wasiirada maayirka caasimadda Hargeysa maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi salaadin waxgarad cuqaal haween iyo dadweyne kale oo lagu casumay munaasabadaasi Ibrahim Nuur Jaamac Guure oo ku hadlayay magaca maamulka labadan dugsi ayaa ka warbixiyay marxaladii uu soo maray ولكن الشكر علينا واجب وحق لكل مساهم وداعم لهذه مصيرة طيبة فنبدأ شكرنا لفخامة الرئيس السيد أحمد محمد سيلانيو وحكومته الذين كان لهم دور كبير في تذليل الصعاب والعقبات بدءا بالدعم المعنوي والزيارات وانتهاء بالعفاء الجمركي waxaan uga mahad celiyay dawladda Kuwait mashruucan ay hirgelisay kaas oo sheegay inay iyadu fulisay labadan mashruuc oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan dadka agoomaha iyo kuwa danyarta Saacad Al-Utaybi oo ku hadlayay afka dawladda Kuwait oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan khayriga uu yahay mid loogu talagalay in lagu daryeelo dadka agoomaha iyo kuwa awoodi waayay inay galaan waxbarashada lacagta waxaanu tilmaamay in kharashka lagu dhisay dugsiyadan laga soo bixiyay xafiiska sakada ee dawladda Kuwait ولقد استحال الحلم واقعا تعاينه أبصارنا الآن على هذه الأرض احتضنت المشروع بدفء ووفرت له نموا ودعم ضمن له الاستمرار marwa amne maxamuud diriya maaraya xafiiska samafalka oo ka hadashay ayaa sharaxay doorka xafiiskeedu ku lahaa mashruucan waxaana uga mahad celisay madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba dawladda Kuwait madaxweyne sidoo kale oogay xafiiska samafalka waxaan aad iyo aad kaaga mahadnaqaynaa xafiiska aad u samaysay samafalka si dayarta ay isu soo gaadhaan xukuumaddu waxay ilaahay ku baraynaa waxa agoon halkaa lagu hayo iyo hawshaa socota miisaanka xasanaadka waxaan ilaahay uga baryaa in madaxweynuhu ilaahay ugu daro miisaanka xasanaadka maalinta loo baahan yahay waayo madaxweynuhu waa madaxweynihii noo ogolaaday ee markii hawsha aan uga nimid isla daqiiqadiiba loo fuliyey oo aanay la-aantii isaga iyo wasiirada iyo xukuumadduba aanay la-aantood aanay dhaqaaqdeen marka mahadda koowaad ilaahay ka soo waxa leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo u heelan sidii dayartiisa u caawin lahaa sidii ku qoray buuggii xisbiga kulmiye inuu madaxweynuhu ka shaqeeyo hawlaha danyarta wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa Kuwait ku amaanay dugsiyadan ay dalka ka yagleeshay الثاني من نوعه في هذا المركز والصحر التعليمي التربوي والمهني للبنات ووضعنا حجر الأساس قبل 11 عاما في مثل هذا اليوم
waxaanu iftiimiyey sida shacabka Somaliland ugu baahnaayeen mashaariicda noocan oo kale ah gaar ahaan waxa uu sheegay inay ka faa'iideysan doonaan kuwa danyarta waxaanu ku dhiirigeliyay dawladda Kuwait inay halkaas ka sii wadaan mashaariicda noocan oo kale ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Silaanya ayaa uga mahad celiyay dawladda Kuwait iyo xafiiska sakada mashaariicdan ay ka furiyeen Somaliland madaxweyne Axmed Maxamed Silaanya ayaa cadeeyay in mashruucani uu qiimo weyn ugu fadhiyo shacabka Somaliland waxaan xafladda furitaanka dhismaha xarunta goobaha qaybta hablaha waxaan maxad ballaaran u celinayaa bayta zakaat iyo dawladda Kuwait ee fursad mashruuca kan mashruucan waa mashruuc qiimo weyn qaawo ugu fadhiya aad iyo aad dalka iyo dadkaba qiimo weyn ugu fadhiya weeye marka waxaan jecelahay halkan aad ugu mahad celiyo dawladda Kuwait ee mashruuca kan inaga baalgelisay ee noo samaysay aad iyo aad baan ku baadinayaa dawladda Kuwait ayaa madaxweynaha Somaliland guddoonsiiyay abaalmarin halka uu madaxweynuhu guddoonsiiyay shahaadooyin dadkii ka qayb qaatay barnaamijkaasi geesta kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa xariga ka jaray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaal hoos yimaada dugsigaasi kaasoo loogu talagalay in lagu daweeyo ubadka wax ku baranaya dugsiyadaasi iyo dadka kale ee u baahan in lagu daryeelo caafimaadkooda waa dugsiga labaad ee dawladda Kuwait ay si rasmi ah uga hirgeliso caasimadda Somaliland Hargeysa waxaana hore u hirgelisay dugsiga agoomaha waxbarashada kana waxa uu noqonayaa dugsiga labaad oo loogu talagalay in ay wax ku bartaan gabdhaha agoomaha iyo waliba dadka danyarta ee ku dhaqan Somaliland Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Somaliland caasimadda Hargeysa